Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah musharax madaxweyne ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo dhibaatooyinka ka jira. Gobolka Gedo waxa ka jirta xaalad bini'aadanimo oo ay sababeen abaaraha ku dhuftay gobolka. Dadka iyo xoolihii ay dhaqan jireenba waxa si siman u halakaysay abaarta. Waxa aad u yar gurmadka caalamiga ah iyo midka dhexdeena ah ee la gaarsiiyay walaalaha reer Gedo. Waxaan codkayga ku biirinayaa qayladhaanta ku aadan in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo gobolka Gedo si aanay u dhicin xaalad bini'aadanimo oo ka daran midda hadda taagan. Waxaan soo jeedinayaa in sanduuq Soomaaliyeed loo furo gobolka oo loo wada istaago samata bixinta dadka u badan danyarta. Dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxaan leeyahay 16 kursi ee Gedo lagu dooran doono waxa ka muhiimsan badbaadinta nafta dadka gaajada u dhimanaya ee fadlan ciidanka iyo colaadda ku bedel caawimaad oo xusuus wanaagsan uga tag reer Gedo. Waxa dhamaanteen la gudboon mucaarad iyo mu'ayid dowlad iyo shacabba inaan gacan ka geysano meelna uga soo wada jeesano dhibaatooyinka waaweyn ee ka jira dalka sida dhibaatada ay sababtay abaarta gobolka Gedo iyo xanuunka COVID-19. Waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay iscaawiyaan oo aanay cid kale sugin. Beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay caawinaad degdeg ah u fidiyaan gobolka Gedo iyo dhibaatada biyo la'aaneed ee ka taagan inta aysan arrimuhu faraha ka bixin. Hadalkaasi waxaa bartiisa Facebook ku soo qoray musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo si gaar ah uga hadlayay arrimaha dhibaato ee ka jira gobolka Gedo. Jumbo sirtu waa dhandanka